kusoo dhawo Fan Academy taawo calaamada subscribe-ka kadibna furo gambaleelka taana waxay ku saaraysaa cashar kastoo aynu soo dhigno inuu kuu soo dhaco isla waqtiga aynu soo dhigno waad mahadsan tahay assalaamu calaykum magacayga waa Axmed Cabdiqaadir halkan waa Fan Academy darsigan ciwaankiisu waxa weeyaan how to use present simple to talk about future events how to use sida loo isticmaalo present simple ama simple present tense to talk about ayadoo laga hadlayo wax ku saabsan future events dhacdooyin mustaqbalka ah waxaan hore usoo baranay in tensigan simple present tensiga ah loo isticmaalo dhacdooyinka routiinka ah ee sida joogtada loo sameeyo haatan waxaan baranaynaa isagoo loo isticmaalayo dhacdooyin mustaqbal ah The present simple can be used to talk about scheduled future events. These are events that happen according to a schedule or timetable. They are usually scheduled by someone else and they are usually public events. The present simple simple presentiga can be used waxaa loo isticmaali karaa to talk in looga hadlo about wax ku saabsan scheduled or scheduled future events in looga hadlo wax ku saabsan dhacdooyin mustaqbalka ah ee qorshaysan ama jadwalaysan these are events kuwani waa dhacdooyin that happen dhaco according to ayadoo loo eegayo a schedule or timetable ayadoo loo fiirinayo timetable shax ama waqti qorshaysan they are usually scheduled by someone else caadiyanna waxaa qorsheeya ama jadwaleeyo by someone else qof kaleeto and they are usually public events caadiyanna waa dhacdooyin public ah the present simple can be used waxaa loo isticmaali karaa to talk about in looga hadlo scheduled or scheduled future events dhacdooyin qorshaysan ee mustaqbalka ah these are events kuwan waa dhacdooyin that happen dhaco according to ayadoo loo eegayo a schedule or timetable ayadoo loo fiirinayo timetable waqti qorshaysan they are usually scheduled by someone else caadiyanna waxaa qorsheeyo qof kaleeto and they are usually public events caadiyan waa dhacdooyin public ah waxa weeyaan dhacdooyin jadwal ku shaqeeyo sida duulimaadka oo diyaaradaha oo kale waqti ay baxaan waqtina way imaadaan sidoo kale basaska trainada shileemooyinka cayaaraha iyo wixii la mid ah inta waxay ku shaqeeyaan timetable qof ayaa qorsheynaya ama u sameynaya waqtigaas ayaa waxay bilaabmayaan ama ay dhammaanayaan marka waxaa la yidhahdaa scheduled and future events oo dhacdooyin qorshaysan ama mustaqbalka dhacayo examples tusaalooyin bal haddaba aan eegno tusaalooyinkan the plane arrives at 6 tomorrow the plane diyaaradda arrives waxay imaanaysaa at 6 tomorrow beri lixda subaxnimo beri the plane diyaaradda arrives waxay imaanaysaa at 6 tomorrow beri lixdii she has a math class tomorrow morning she has math class tomorrow morning ayadu waxay leedahay fasal xisaab ah beritoole the restaurant opens at 7:30 tonight maqaayaddu waxay furan tahay ma furmaysaa 7:30 tonight caawo next Thursday at 4 there is an English exam next Thursday khamiis dambo at 4 afarta there is waxaa jirayo an English exam
imtixaan Ingiriis ah. Next Thursday at 4 p.m. Khamiista xigta 4. There is waxaa jirayo an English exam imtixaan Ingiriis ah. The plane leaves in 10 minutes. Diyaaraddu waxay bixaysaa 10 daqiiqo gudaheed. The plane diyaaradda leaves waxay tegaysaa in 10 minutes 10 daqiiqo. Tomorrow is Friday. Beri waa Jimco. Tomorrow is Friday. Beritole waa Jimco. I fly to Paris next week. Waxaan u duulayaa magaalada Paris asbuuca xiga. I fly. Waxaan u duulayaa to Paris magaalada Paris next week asbuuca xiga. The plane departs at 8 p.m. Diyaaraddu waxay tegaysaa 8. The plane departs at 8 p.m. The train to Ottawa leaves at 11:30 a.m. The trainka to aado Ottawa leaves wuxuu tegayaa at 11:30 a.m. When do you leave for New York? When do you leave for New York City? Goormeed tegaysaa New York City? Her train arrives at 8:35 a.m. tomorrow morning. Her trainkeeda arrives wuxuu imaanayaa at 8:35 8:35 tomorrow morning beri subax. What time does the movie start tonight? What time waqtigee does the movie filimka start u bilaabmaya tonight caawa? What time do you finish work tomorrow? Xilligee dhammaynaysaa shaqada beritole? What time do you finish work tomorrow? What time waqtigee do you finish aad dhammaynaysaa work shaqada tomorrow beritole? What time does the store open tomorrow? What time does the store? Xilligee ayuu maqsinka baqaarka open furan yahay tomorrow beri? Final exams start next week. Final exams start next week. Imtixaamaadka madambeysta ah start ayaa bilaabmaya next week asbuuca xiga. The concert begins at 6:30 p.m. The concert begins at 6:30 a.m. The concert riwaayaddu begins waxay bilaabmaysaa at 6:30 6:30 p.m. The shop closes at 10 p.m. The shop dukaan closes wuxuu xiraya ama xirmaya at 10 p.m. Important. Halkan waxaa muhiim ah only the verbs below can be used in the simple present to talk about future scheduled events. Only kaliya the verbs ficilada below hoos ku xusan can be used ayaa loo isticmaali karaa in the simple present to talk about in laga hadlo future scheduled events. Kaliya the verbs ficilada only the verbs kaliya ficilada below hoos ku xusan can be used ayaa loo isticmaali karaa in the simple present tensiga simple presentiga to talk about in laga hadlo a future scheduled events and dhacdooyin qorsheysan ee mustaqbalka ah. Waxaa ka mid ah ficiladaas arrive oo ah imaansho, be oo noqosho ama ahaansho, begin oo ah bilaawid bilaawid, close xirid, depart waa tegid depart, end dhamaasho waxaa la mid ah finish waa dhamaad, fly duulis, leave tegid, open waa furin ama furmid, open furmid, start biloowid. Marka erayadan ayaa loo isticmaalaa future scheduled events dhacdooyinka mustaqbalka ee qorsheysan. Kulli waxaa weeyaan erayada loo isticmaalo ee muhiimka ah. Thanks for watching. Ku mahadsan tahay daawashadaada. Waxaan filayaa inaad si buuxda u fahanteen darsigan. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad aragto casharkan fadlan nagula wadaag commentiga hoose. Haddii aad ka heshayna fadlan like saar, asxaabtaada la wadaag ee baraha bulshada. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.